Jalaaluddin Maxamed Rumi, oo dadka qaarna ay u yaqaanaan Mawlana, Mevlana, reer galbeedkuna ay ugu yeeraan Rumi, wuxuu ahaa caalim iyo aqoon-yahan ku xeel dheer aqoonta diinta, gabyaa, faylasuuf iyo suufi Farisi ah, oo noolaa qarnigii 13aad intii u dhaxaysay sanadihii 1207 ilaa 1273. Wuxuu ku dhashay Balkhi, oo hadda Afghanistan ka tirsan, wuxuuna ku aasan yahay Konya, Turki. 7 qarni kadib geerida Rumi, fikirkiisa iyo gabayadiisu waxay saameyn weyn ku yeesheen boqolaal kun oo dad oo kala dhaqan, diin, af iyo isir ah. Buugaagta Rumi ee caanka ah ee afaf badan loo tarjumay waxaa ka mid ah Masnafi, waxaana la qabaa in uu ka mid yahay suugaanta suufida gebi ahaan kuwooda ugu haldoorsan. Waxaan idiin kala dhex baxayaa idinka iyo qaar ka mid ah oraahyada Jalaaluddin Rumi oo aan af Soomaali u tarjumay. Waa oraahyo xambaarsan murti ku qotanta waayo-aragnimo nololeed oo aad u xeel dheer, lagana yaabo mararka qaar in ay yeeshaan fahan falsafadeed oo aad u qoto dheer. Ha dhihin berri ayaan samaynayaa. Maanta lafteedu waa berridii shalay. Maxaad samaysay? Dhaawacu waa meesha uu iftiinku kaaga soo galo. Maxaa xabsiga ku dhex joojiyey iyada oo uu albaabku ballaqan yahay? Waxaad tahay waxa aad baadigoobka ugu jirto. Marka aad rabto safar in aad u baxdo, ha weydiinin talo qof jiirhaan ku weynaaday ah. Noloshaada dab ku qabo, kadib raadso dad dabka kuu sii huriya. Waxaa lagu dhalay adiga oo baala leh, maxaa ku baday nolosha oo dhan in aad gurguurato? Haddii ay cabsi iyo rajo isla kaa hayaan, waxaad haysataa 2 baal. Awalba hal baal laguma duuli karin. Haddii wax walba oo kugu hareeraysan ay mugdi yihiin, mar kale eeg. Waxaa laga yaabaa iftiinkuba in aad adiga tahay. Tani waa waddadaada adiga oo keliya ayaa leh. Waa laga yaabaa dadka kale in ay kula socdaan, laakiin cid adiga kuu socon karta ma jirto. Haddii aad bani'aadan dhab ah tahay, wax walba jacayl dartii ugu qamaar. Mar haddii laamo bunni ah ay dhaleen ubaxyo basali ah, ma jirto sabab loo quusto. Maalmaha wanaagsan kuuma imaanayaan, ee waa in aad lugahaaga ku raadsataa. Marka jacayl la joogo, sababayntu awood ma laha. Xanuunada aad dareemayso waa ergo fariin sidayaal ah ee si wanaagsan u dhegayso. Waad ku mahadsan tahay daawashada. Fadlan fiidiyowga la sii wadaag asxaabtaada. Nabaday.